عليكم ورحمة الله وبركاته. halka aad ka dhageysanaysaan kana daawanaysaan waa YouTube kan ku leeyahay wacyigelin bulshawan oo aan u soo gudbinayo qof kasta oo jecel waxbarashada applicationada. aan u soo diyaariyay casharadaas applicationada. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Benimi application Benimi oo ah application aad u wanaagsan una wanaagsan arin kasta oo dhalinyarada maanta u baahan yihiin. Benimi waxa la application waxa waaye sabuurad cad oo dadka wax lagu baro ama tusaale lagu dhigo ama adiga waxa lagu sharaxo sida criminalka dambiyada kale waxa lagu sharxi karaa beeraha waa lagu sharxi karaa waxyaabo badan lagu sharxi karaa adiga cid kasta oo markaas oo isticmaali kara. laakiin waxa loogu talagalay asal ahaan macalinka waxa inuu gudbiyo jecel oo dadka wax barayo oo shay macna barayo tusaale ahaan luqadda markaad dadka barisid waa ku qori kartaa markaad wax sharaxiis waa ku qori kartaa adiga arrimo badan ayaa loogu talagalay. laakiin insha Allah taala waxa ku soo koobayaa macalinimada waa ku soo koobayaa. marka insha Allah taala haddaan bilowno aan taabano oo gudihiisa qaabka loo galayo waxa dhan haddaan barana insha Allah taala soo dhawaada bal aan salaarana. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. ataawanay markaasaas aa u taawato aa furto waxa isla marka ku soo baxayaan waxa isla marka ku soo baxayo barnaamijyo hore aan u sameeyay waaye. saddex arrimood aad isticmaalay kaliya meeshaas. saddexda arrimoodna waa tan haddaan korka tusaro ah saddexda arrimood loo isticmaalo waxa waa movies filimada waa loogu talagalay xaliyada aliyada meesha wax loogu darayo waaye iyo project adi aad samaysanaysid oo adi aad hor u samayso waaye. magaciisa marka oo asaga uu leeyahay application waa kaasa Benimi ayaa liyada sawir ahaan waa midka koowaad sawirkiisana aan itusahay saas u kala baxaan. marka anigu waxaan project meesha aan ku samaystay marka meesha laga soo galayo meeshan waaye waa awal wataan tusay meesha laga soo galayo koodii hore waa meeshan waaye oo aad ku aggelaysid meeshaas ayaa gelaysaa waan taabanaynaa kadib waxaan soo baxaan arkaynaa waana sharax insha Allah taala. waan taabanay waxaan la soo baxayo ilaa iyo saddex arinood aan soo baxayo. shaygan title-kan oo waxa la lahaa meesha magaca ku qoraysid waana meeshana aad magaca ku qoraysid waaye ayaa la title meeshana magaca ku qorana magac alla magaca u baahan tahay مثلا tusaale magaca inuu musalsal yahay oo kala laga yaabaa marka waxa leedahay casharka koowaad casharka labaad casharka saddexaad casharka afraad way badanayaan wuxuu ku leeyahay marka meeshan waxaad dooranaysaa marka meeshan English waxaa ku qoran choose a conversation macnaha cabir loogu talagalay inaad ka doorato waxaa furaysaa isha yarta ayaa furaysaa waxaana ka dooranaysaa magaca meeshan kale cabiradan kale ayaad qaadanaysaa si cabirkan markaa u qaadato oo dadku ay markaas ay fahmayaan. macnaha YouTube ka la geliyaa badanaa YouTube kaliya laguma tirtiyo Facebook haddaad dhigaysid haddaa meel kasta dhigaysid meesha loo isticmaalo waaye. marka aan isha yarta aan furno insha Allah taala aan aragno hadana isha yarta ayaan furaynaa waxaan noo soo baxaan arki doonaa waana sharaxaye. ishii yareed waa furnay waxaa noo soo baxay arrimo badan noo soo baxay. haddii aad rabto casharka YouTube inaad dhigto waxaad isticmaalaysaa ugu fiican yahay waa 1080ka YouTube waxaa jiro oo 720 ah asna waa nadiif kale
laakiin waxaa labadooda kasii nadiifsan 360 inuu yahay. Instagram-ka hadda aragto inaad dhigto videoga aad dhigi lahayd oo 10 aad dhigisid, Instagram-ka markaad dhigaysid cabirkiisa waa inuu noqdaa shaashada laga fiirsanayo inuu 16 lagu dhufto 9. TikTok hadda aragto inaad dhigtana asana waa 1080 ayaa u fiican. 720 waa la isticmaali karaa, laakiin waxaa u fiican 360 oo mar walba nishay cabirkaas 360 ayaa aad u fiican. Vimeo haddii aad video inaad dhigto arabtana waa saas waaye. Facebookana waxaa isticmaalaysaa 720 ayaa isticmaalaysaa si ay dadka u fahmaan. marka meeshaas wax dhigaysid waxa waa cabir loogu talagalay videoga inuu ku qorxonaanayo hadba kanaalka aad gashanaysid, YouTube ha ahaado, Instagram ha ahaado, TikTok ha ahaado, Vimeo ha ahaado, Facebook ha ahaado, waxa loogu talagalay in sidaas loogu isticmaalo. waa fahantina umalena cabirka noocaas ayaa loogu talagalay. waa inaan cabirkaas marka aniga hadda YouTube aan leeyahay waxaan gelina casharka YouTube waaye. marka meeshana waxaa lagu qorayaa magacii oo loogu talagalay. magac ayaa alifaysaa, tusaale magac ayaa alifaysaa, magaca aliftay magacaas uu iska soconaya, laakiin waxaa ku diray tira ku diray. tusaale hadda aan ka baxno waan qoraynaa insha Allah taala. waxaan qoraynaa marka waxaa leedahay casharka koowaad, casharka koowaad aad ku diray marka aad farta marka gadud waay. marka wuxuu ku leeyahay meesha waxa ku qoran create movies, macnaha dhaqaaqay oo aad soconaysay, macnaha abuur waa dhaqaaqay abuur, macnaha waxa laga wada socday, macnaha waxa waaye waa abuurid meesha marka la abuurayo waa ama save garanta amal waa soo taqaanaan. create movies ayaa la yiraahdaa socodka la abuurayo, macnaha ila marba ina 10 geli sartaa. marka casharka koowaad, casharka labaad, casharka saddexaad, casharka koomaad, casharka laba koomaad, casharka 4 milyan oo ina qorto ilaa aad gaarto ilaa YouTube-ka intaasoo filmaana la geliyo Soomaha kumanaan kuna la geliyo. marka dadka casharkaas markay ka bartaan YouTube-kaagana wuu ku kala kacaa ama Instagram-ka ama Facebook-ka ama TikTok wixii lagu talagalay, macnaha hal waji inaa yeelataa laga wadaa. macnaha 10 hadaad dhigaysid casharka koowaad ilaa kumanaan kun inaad gaarsiisan la rabaa. ilaa dadkii wax baranayay ayaa ka faa'iidayo oo tusaale ahaan waaye casharka dadku wax barasho jeceliin oo inaad dadka wax ku barto macallin hadaad tahay wax alla waxaad doonto ku barkataa. laakiin carabiyada asaga ma qori maayo, carabiga hadii lagu qori maayo ma qori karo. dadka carabiga jecel oo laakiin waxa jiro beenimo kale carabta ay gooni leedahay jiro oo carabiga u qoraayo midig soo qoraayo, laakiin kan wuxuu qoraa bidix carabiga u qoraa. marka bal soo dhawaada aan isla arno. kan kalena waxa la cancel la yiraahdaa hadii marka aad rabto inaad iska kansasho, midna magacii waa qortay oo kula xumaaday, waxaas leedahay waxaan qortay maxay tahay waxa waa kula xumaa waa xanaaqda. marka waa iska tiri kartaa markaas cancel la dhayo oo ka baxa casharkaas. macnaha ma galayo aan marka gudu u galno nago cancelka aan taawanin create movies ayaan leeno taawanina. marka aan soo galno sabuurada horta intaana la eg tahay sabuurada waa shaashad dhameystiran waay. waa sharaxaya marka sabuuradan badanaa waxaa laga dhigtaa color, aniga colorkana ka dhigtaa cadaankan u fiican. ileen qof kasta oo macnaha oo waxa la barayo shay meel cad in wax lagu baraa fiican. waxaana caafimaad ahaan ku jaalay zoo, macnaha waxa la yiraahdaa fogaanshaha iyo dhawaanshaha. qofka hadduu indhaha xataa ka xanuunsan yahay meel cad oo wax madow oo dhex dhiga wuu arki karaa qofka indhaha xanuunka haysa caafimaad ahaan haddii laga hadlayo. qofka markuu caafimaadkiisana ay fiican tahay ama ilmo yaryar ay yihiin ama waxa dadka la barayo dad yaryar yihiin oo YouTube kale marka dalbato ilmo yaryar inaa wax barto kale marka oo ku soo fikiraysato oo weliga Allah ilmo yar inaa wax ku barayso in noqoto tusaale ama jin lagu sameeyo animation
waa lagu sameeya jiniyaasha waa lagu sameeya meeshaan ayaa saas lagu talagalay. marka indhaha qofka marka inaan laga dilin ayaa lagu talagalay. shaashada waa taasaa. horta meeshaan koodii hore waa meesha looga baxayo waaye. cashirka aad dhigtay ciwaankiisana waa kaasaa. meeshaana waa meesha lagu safe gareynaayay oo in la safe gareeya loogu talagalay. meeshaan kalena waxa waaye play ayaa la yiraahdaa, in lagu daaro videoga inaad daartid. meeshaas kalena waxa waaye marka aad rabto inaad ka wada baxdo aase ilaa cashirka markaad dhameysid ayaa safe gareysanaysaa. meeshaana waxaa leedahaa sticker ayaa la yiraahdaa. video ama markaa soo gelinaysa muuqaalo oo sawira markaa soo gelinaysa ayaa loogu talagalay. meeshaan waxaa loogu talagalay text qoraalada ayaa loogu talagalay. meeshaan waxaa loogu talagalay backgroundkan oo meesha hadda cad aan kuu sheegay afar geeskan cad meesha laga bedel lahaa cadaan iyo inuu ku noqonayo. meeshaan waxaa leedahay gacantii wax qoraysay noocyadooda gacmaha wax qoraayeen. meesha ugu dambeysana waxaa waaye codkii aad saari lahayd iyo muustikada. cod ama muustiko isla socda inaad saaratid, ilaan dad waxaa jecel muustikada iyo codka isla socda. qofka marka dhegeysanaya cashirkan oo markaa muustik usoo saarto ama muustik la-aan dadka qaar jecel yihiin. marka waxaa jira marka qofka haddaa aamusto, qofkii haddii marka aysan muustika la socon oo aad aamusto, qofkii marka wuxuu dhegeysta mala waa iska aamusan tahay. qofka wuxuu isleeyahay marka meesha ma tatiran tahay, wuu ku fikiraa marka. haddii laakiin muustika ku jirto oo macnaha muustika waxaa la dhahaa mid oo natural ah oo sida dabeelaha iyo buuraha iyo rooro markuu da-ayo kale qofku dhegeysanayo uu ku raaxaysana qofka. marka wuxuu leeyahay macalinku waa aamusan yahay, cashirka wuu sii socdaa. marka waxaa kaloo idin barayaa meeshaas 3 dhibcood ah ayadana waa action kale. meeshaana waxaa ku yaalo number ku yaalo. meeshaana waa meesha laga shido. calaamad dhaxa meeshan oo noo taalo, calaamad dhaxa noo taalo. hadda ugu dambeyn aan dhigi doono tan aan ka baxo koraan aadaya. calaamadana waxaa waaye calaamad balaas ah leeyahay. beejkan marka hoose oo afar geeska aan tusi doono in aad badiso daarta waa kan afar geeskan falaarka aan geliyo. afar geeskan marka rabto inaad badiso meesha laga bilaabo balaaskan yiriiska waaye. marka intaas markaa marayso cashirka intaana ku saabsan yahay waa badan yahay. hadda aan bilaawno meesha aan ka bilaabo haddaan idin fahansiina insha allahu tacaala. tusaale ahaan marka waxaan ka bilaabayaa, waxaan rabaa inaan qoraal geliyo. qoraalka markaa rabto inaad gelisid, qoraalka wataan idin sheegayay waa kana. qoraalka intaan ka bilaabo textka ayaan taabanayaa, qoraalka ayaan gelinaynaa. keep going. qoraalka ayaa taabatay. meesha marka waxaa ku qoraysaa qoraal alla qoraala. macnaha ilaan sabuuradu way caddahay, waa ilaan kor waxaa lagu qoraa marka cashirka koowaad ee luqadda Englishka oo kale qoraa. tusaale kale macallimiinta si dadka aniga qajaari noo noqoto, qofkaas wax barayana anagana ajir ku yeelano. ilaan ma la noolaanayo, waa la dhimanayaa. aan ka baxno marka meeshaan insert ay ku qoran tahayna waxaa waaye soo geli waaye. insert gelitaan la yiraahdaa inta aad ku qoratay inaad gudaha geliso ama aad tira cancel inaad uga baxdo. bal aan galno aan gudubno. marka qoraalka aan ku qoraynaa, waxaan ku qoraynaa marka English. fartana waxaan ka dhiganaa capital letter. fartaan haddaa ka dhigato capital letter way fiican tahay. capital letter ka dhigno English ayaa ka dhigaynaa
fartana waa weynaan ka dhigna tusaale English ayaa rabtaa inaad qorto markaad tiraahdo meesha aad taabanayso waa nii sheegay waxaan taabanaynaa waxaa waaye waa insert inaad taabatid waa insert ayaa taabanaysaa si uu qoraalkan u galo qoraalkan si u galo ay mahadsanidin ama la waa gelinay marka waxaa jirto cashirkan waa jijiidi kartaa waa wadwadi kartaa gacantaada ku wadwadi wajida meeshaas aad dhigi kartaa marka English maadaama dhigay halkaasaan geysanina marka hadda aragtay inaad dheereyso ama aad weyneyso ama aad weyneyso hadda aragto cashirka hadda aragto inaad weyneyso ama aad dheereysato waxaa isticmaalaysaa calaamadan aad taabanaysaa calaamadan ayaa horey iyo gadaal geynaysaa aan bilowno calaamad waatana weynaan mujida weynaana haddii qoraal badan la socdaada waa weynaan lahay sooma laakiin waa weynaana sooma marka waxaa kaloo jira marka tusaalooyin badan inta idin dhigo si aad u aragtaan meeshan koowaad waxaa loogu talagalay farta inaad bedesho middan labaad inaad kalarka ka bedesho middan saddexaad inaad farta cabirkeedii aad weyneyso saddexdaana way isla socdaan inaad saddexdaas macnaha farta inaad mar bidix aad geyso dhexda aad geyso midigna aad geysid waa midda saddexaadi in aad farti aad dib u bedesho oo qalin aad dhex dhigto qalin aad gelisid farti inta daqiiqo ee taagnaanaysa ayaa loogu talagalay waxtaas haddii farti aad tirisidna kaasaa loogu talagalay farti inaad tirto haddii aad rabto inaad koobiyeysid farti oo aad mar labaad koobiyeysid taasaa loogu talagalay kib goyn aan ka socono marka farti inaan bedelaan rabaa wataan text aan bilaabay fartii way la xumaatay waxaan dhigaa way la xumaadeen kaasaan aan doortay fartii waa bedelay mujida kalarkii aan bedelayaa waxaan ka dhigay jaalan ka dhigtay select waa doortay farta jaalan noqto fal xumeeyay noqto jaalan marnay madow u soceli okay farta marka aragtay inaad cabirkan aad bedeshanay cabirkan marka aragtay inaad bedeshanay dhexda le ka taabanay saasoo booday asla aragno dhexdaan ka taabtay meesha 100 igu qoran waxaan leeyahay 105 aan rabaa 105 aan qoray okay jawaab waa soo weynaad 105 mar rabay waxaan 120 aan rabaa 120 dhaano dheh okay no dheh oo waa soo weynaad mujidaan tii dheerada aqabanay ablaarna waa leekiisini gududkaas inuu soo dhaafin rabo garkiis Englishkiina waa weynaysanay Englishka marka waxaan rabnaa inuu qormo arabnaa marka Englishkaas inuu qormo ayaan rabnaa direction waa tigeysa direction waxa la waa meeshan direction waxa la meeshan waa qabanay meeshaas qabanay 4 daqiiqo aan dhigtaani aniga waxaan 10 aan barbo hadda meesha waxa saar 2 second 4 second asaata badana aniga waxa markaan sameesto 4 second 6 second 8 second aan dhigay marka shay walba meesha oo duuda yaalo oo cabiran inay hal cabir wada noqdaan 4 second ina ka dhigto ina 5 second ka dhigto wax ka dhixi male ani laakiin 4 second isticmaala kii gab aan bilowno dhaxda ka taabanaysa waxaa leenahay 04 aan ka dhigtani waa 4 second videoka 4 second i soconaa musigan iyo displaygana ma isticmaalo marka qoraalkan iloway oo rabo inaan sharaxo aan sharaxan rabay meesha waxa lahaa labadan calaamadoodna waxa lahaa fartan yarow madow midna waxa ka dambayso dhibic midna dhibic ka soo horeyso dhibicda soo horeyso afar geeska isla eego dhibic ka dambayso waxa lahaa iyaga soo hormari dhibicda oo xariijinta oo labada gees ane waxa waaye gadaal iga marsii waay waan arki doonaa
keep going aan wadno hawsha aan wadano. English waa qornay hadda casharo badan aan gelinaa inta hore waan baray soo maaha. marka balay hadaarta inaad ka baxdo oo aad waxaan aad arkin marka tusaale kale qoraalkan waxaa rabaa inuu u imaado nooc kale ay balay aan dhahno balay waatana balay laba meel ma ka dhigi kartid halkaas meel bisaa dheh aan daarno marka gacana noo qorto mujida gacana hore noogu darneed marka cashir kale marka harta inaad gelisid text haddana bilaabi farta noo saaran English waxaan leenahay tusaale lesson 1 adhayna lesson 1 insert adhayna lesson 1 marka hoosta ka gelinay marka fartan 120 waaye 120 meesha ka bedelan waa ku sheegay waana ku bari waa meesha 100 ku soo celi marka 100 ku soo celi atawana 100 ku soo celina isla soctal raba maskaxna Allah lesson 1 aan dhahnay soo English lesson 1 ka baranaa wiilad ciwaankiisa lama qorin English lesson 1 title maxaa waaye alphabets aqoonaya marka oo ka bixina marka harta inaad ka baxdo oo aad degto fartan aad bedelatid dhaxad meesha cada taabanay hadaa textkan aad taabato oo wixii aad arabtay aad qorato tusaale marka aad qorato aad soo gelisid meeshan shaashada cad bis meel kamid ah taabanay waxaan way ka baxayaan meesha hore tagi intaas kale fahanto waaye kana marka aan iska tirno meesha laga tirno waa ku baray waa meesha geeskana waaye wax alla waxa harta marka inaad tartana taas ayaa taabanaysaa waxa waaye waa meesha waxa waaye koobka baaqoliga ama jeeg oo fur ka saar camal waa Soomaali afaano taabano meesha ayaa taabanaysaa waa ka baxdo saas jawaab bixi hadaarta in 10 ka shidana meesha la ka shidan kartaa korkaas aad diido dhaxdana ka shidan kartaa korna waa ka shidan kartaa dhaxdana waa ka shidaysaa korna waa ka shidan kartaa labadaas meel laga shidaa ashada labadaas meel ka shidan kartaa si dadkii u arkaan oo aad wax baraysay marka macalinka wax barayo ayaa loogu talagalay application-kan aan ka gudubno cashirka waa qornay lesson 1 waa qornay waxaan qoraynaa alphabets cashirka la dhigaa maxuu yahay alphabets waa dhignay alphabets asaad waa dhigay marka waa la kala marka waa taabanay lesson 1 iyo cashirkan waxaa qormarinay English ka dhaween alphabetska lesson 1 waa asna waa garasime waa taabanay marka gudud noqdo aad riixi kartaa afargees waxaa qoraynaa marka harta inaad ka baxdo oo meesha hore aad tagto meeshaan cad meel kamid aad taabanay waxaa arkay meesha hore laabanay intaas xasuusnow marka harta inaad waxaan aad ka baxdo meel kale aad maysid dhaxda kaas marka falaartaas laga bax ma la taabanayo falaartan laga baxo lama taabanayo waana taaban kartaa laakiin uu boodaa cashka uu boodaa kaasna uga bixi kartaa meesha cadna waa taaban kartaa area meel kamid ahna waa taaban kartaa meelahaas cad meel kamid ah waa taaban kartaa waa ka bixi aan tusaale garayno hadaa kaas aan taabto save guarantee waayo qalad waayo cashirkeena ma save garaysnayn laakiin wuu noo yeelaa xag noo yeelaa inta waa kaas ka bixidaa liidaa markaa ka wada bixisid arta cashirka waa ka xagaas u yeelaa aan gudo u galno taabano soo celino soo marka arta marka inaa meeshaan imaatid meeshaan hadda aan arkayna
mar walba inaa meeshaan aad joogtaa rabtaa mar walba inaa meeshaan joogtaa shaashadan cad meel kamid ah taabana waa imaahe waa ku wareerin inaa ifaanta isku dambeysa okay aan qorno abc dan qoraynaa marka farta hadday yar tahay qoraalku wuu daaha mar walba wuu daaha laakiin hadday farta badan tahay qoraalku wuu badan yahay tusaale hadda wax badan aan qorno wax badan aan qorina macnaha kama gaarno abc kale waa qornay waxyaa badan aan qorno waxaa markaas aad qortid haddaan mar soo gelisid qoraalka 4 second kuma filna marka haddii marka siiskan uu ku yaraa waayo muhiimaddu ma aha waxaad taabanaysaa meeshaan ayaa taabanaysaa meeshaan ka yareyna qoraalka meeshaan wataan ku dhahay waa ka yareyna meesha marka ay ta kala meeshaan lagu qurxiyaa meeshaan ka yareyna waxaad taabanaysaa anaga waxaad taabanaynaa waxaad 45 taabanaysaa 40 badan waqti wax yar oo ka dhig ma 45 fartiyaa tiro badan macnaha waxaa isticmaasho ugu yaraan 200 erey camal isticmaasho 200 erey waxa yaraan hadana waa beddelna 45 ka beddelina waxaan leenahay 70 ka dhigana xagu aad doona okay de usoo weynaad marka farta tan lagu saxaa qoraalka marka duu kala dheeraado oo qaybna gudaha ka galo kaas aad ku beddeli watan ku dhahay cashirkii aan soo qaadanay waa kana marka aan balay aan dhahno marka kan marka time ma siinay kan waqti ma siinin kan waa 2 second mujida kan waa 2 second fidiya kan waa cashirkan waa 2 second okay 2 second waa la second meeqa second waa asna aan taabano la second meeqa second waa asna aan taabano la second meeqa second waa 2 second ay ka gudub alphabetiska meeqa second waay aan fiirino asna waa 2 second ka gudub haddana aan fiirino English meeqa second waay aan oo noo saarnaha waa 4 second dhammaan 4 second laga dhigaa marka keep going aan socono marka anoo haldina wada sameynaa okay kana taabtay dhaxdaan la taabanay 4 second aan ku qoray 04 okay das iska taabasay asaba bedelaaba leesa ka taabanay 04 oo gudbi alphabetiska tii 04 aad doornay 04 ani inta aan doortaa marka aad doorato cashirka marka geeska iska geeyay gididka geeskana geeyay hadarta marka qoraal ina ku sii darto arto qalinkaas taaban watan ku dhahay waxaan ku dhahay waxa taabanay qalinkaana taabanay hadaa ina wax ku darto arto ina ka dhinta arto qalinkaas taabanay hadarta inaad dhaxda ku aadiso idkana taabanay hadarta ina geesku idkana taabanay hadaa ina geeska ku idkana taabanay watan ku dhahay ka gudub qoraal ina ku darna rabna taabanayna qoraal ku saidinina qoraal zaid ku darna أنا إلا وحي مقولك أنت صالوا مكتوب عن 10 إلا الإنجليش statement إلا لي واحد مقولك إنه أبو سيني واقشنا مرك 10 وكادر هذا وحصل يرينا كم واحد مرك كان يرينا مرك عبرك يا كادر هذا وتأكل هاي ماشي عبرك اللي قادنا هو حاجة ماشي عليه تضواتنا كده ما أنا وكيرين هنا تضاد خلينا كونتن اوكي ذكر ليس كتاب ويرد مانو جدود كما كان حق ليسيد او سود الدجنا marka waxa jiro kale qalka duu laabanaysa farta waxa taabanaysa waxa taabanaysa انتر كان تاونسا فرتو كلا جري انتر ما تاونه كان واك جري انتر ده كان واك سو جري انتر ده كان واك جري وديري انتر ده كان واك سي جري انتر ده كان واك جري انتر ده انا قلاك اسكو ادني اوكي ده مرك
farti marka waa la yareeyey wayna badnaatay soo maha calaamadda xariijinta dheer asaare isla ekaana ma jirtaa asana xariijin dheer yeelna marka cashirkeennii marka aan kusoo qaadanay marka balay aan dhahno si aan u shidno ila waxa aan qoranay saan u aragno soo maha marka 4 second hadda waa ku yartahay qoraalkan hadda oo afar geeska 4 second waa ka badinaa markii waa si dhaqsi u baxaa waxaa la rabaa inuu ardayga cashirkan u akhrisan karo oo fiirsan karo marka waxaa kaloo socodkaas haddii xawaarida waxay leeyihiin speedka marka oo la nidgaranayo speedka ka yareynaya asna saas kale uu story u yeelaa si fudud u qoraa tii wax bobsis inta kaga baxo xaga marka uu yareey karta editing marka ku sameeyay ama aad dejinaysid speedka yareynaya filmka speedkiisa yareynaya asna taas kale ku yareey karta masriidi gobla bali aan dhahno marka andaysan English ka qoray si tartiib u qoray mujida leesonka marka aan qaladnay meesha qalad ka jiro marka alphabet ina u horumarnaa runay akana qoraalka marka firi alphabetiska mudaahi mis wuxuu daahi farka qoraalka farta marka qoraalka badan waxa ka dhignaa 8 ka dhignaa eber 8 aan dhignaa 8 second inuu haylo uu daahina marka hadana bali aan dhahno English ko qoray lesson 1 ayaa marka uu horumariyay sax waa lesson 1 alphabet ku xig marka alphabet al raba lesson 1 inuu dhaho macna ma leh marka taa waxa qoraalka dheeray oo aan dhignay 8 second siinay saas oo bilaabay marka wixii su'aalaha waxa igu soo qodi kartaan insha Allah ta'ala commentiga YouTube kana subscribe u raadiya oo arday cusubna soo raadiya oo ku soo biirta si aan markastana aan u barano cashirkan wixii su'aalaha commentiga lagu reebo YouTube-kiga waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.